sida xaqiiqdii barnaamijkeenu isaga oo taxana ah oo socon doona ilaa iyo 10 caawa hadii Allah awood liyo ogolaado waxa halkan aydan ka dhargi doonin oo iyaguna idin jooga fanaaniin sidaan filayo qiimo badan Cabdirasaaq Saleebaan Gaas walla shir iman doona hadii Allah awood liyo ogolaado hees cusub iyo fanaankii weynaa Cali Cismaan oo ay badan ka dheehateen isaga oo wata kamankiisa shashadaha ayay sameeyeen hadda halka isaguna waxa joogo bahdaydiya waa Abuwaan Maxamuud Gabyaaye oo insha Allah isaguna tix macaan inooga gowsin doona mar dhexdaas hadii Ilaahay kale awood leeyahay hadii Ilaahay awood leh ogolaado inuu yeeri doono haddaba sida xaqiiqdii waxaynu hadda aanu yeerayaa gudidii laanta Norway aan ugu dambaysiinayaa gudoomiyaha garabka dhalinyarada waqooyiga Norway Umar Caaqil Yare kadib waxaan ku xigsiinayaa hadii Allah awood leh ogolaado alla yasiid diyaar garow Cabdirasaaq Saleebaan Gaas iyo hees taada cusub Cali Cismaan ma ka horeysiya fanka wala kale leeyahay bayad bad ma santahay haddaba gudoomiye Umar Yare ku soo dhawow oo gudoomiyaha waqooyiga Norway ee dhalinyarada Umar ku soo dhawow bismillaah aad buu u mahadsan yahay Sideeq waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan shacabka madaxda xisbiga kulmiye caawa waa habeen xagna ka farxada xagna ka qiira ah markaan idhaaho xagna ka farxad waxaan ku faraxsanahay horta guusha xisbiga kulmiye uu hadda marka ka dambaysa uu gaarayo ee loogu soo biyo shubanayo ee loogu soo caano shubanayo odaybaan ka maqli jiray meesha roobku ka da'o ayuu oran jiray waa lagu soo hoobanaya kulmiye roobka ka daay markii horena wuu ka da'sanaa imikana wuu sii batay baan leeyahay markaa soo wada yaaco oo isku soo intaanu idinka buuxsamin bal soo yaaca oo labeenta sida aad labeenta u cuni lahaydeen bal ku soo dadaala ta kale ee qiirada lahi waxa weeyaan xaalad adag baynu ku suganahay abaar baa ina haysata abaartaasi waxay saamaysay xoolihii iyo dhirtii ka soo baxaysay ama nabaadkii oo ka guuray arladii aynu degi jirnay dadkeenuna wuxuu u badan yahay xoolo dhaqato iyo reer guuraaya waxa idamqaysa hooyada maanta ku biyala miyiga hooyada ku biyala tuulada hooyada ku biyala gobolkii xitaa ay soo gashay ay ka jiraan abaaro waxa idhibaysa inanka yare dhalinyarada ah ee abaar dartii uga soo guuray meeshii uu iskuulka ka dhiganayay uga soo hayaamay meeshii ma garanaysaa uu la qabsaday ilaahay subxaanahu wa tacaala baa keenay kuma cadhoonayo laakiin way idamqaysaa markaan arkay sida ay u baahan yihiin xukuumaddu way iska rabtaagtay xisbiyada kale ee mucaaradkaana waxba xaqiri maaya iyaguna way ku hawlan yihiin waana iska rabtaageen waxaynu ku dadaalaynaa oo aynu gacmaha isu qabsanaynaa sidaynu dadkeenna aynu u samata bixin lahayn oo aynu ula qaybsan lahayn dhibka iyo dheefta maadaama aynu marjici loo noqonayo yahay haddii la waayo dee inaguna waxba kama dawannihin waxaan ku darayaa intaa halkan 3 qodob ayaan ku soo koobayaa arrinkayga waqtiguna wuu kooban yahay horta waxaan ugu mahadnaqayaa oo aan mahadda siinayaa hooyooyinkay iyo awoowayaashay ama adeerayaashay oo runtii u taagan siday qaranka horumar u gaadhsiin lahaayeen dhalinyaradii baan anigu la dardaarmaya oo aan u dirayaa baaq dhalinyaradii waxaan ka doonayaa inay u gurmadaan siday odayaashu u guclaynayaan inay isgarab taagaan sida ay odayaashu isu garab taageen ka abaartu haysato iyo ka codka qaranka inuu hogaamiyo doonayo dhalinyarada maanta waxaan leeyahay doorkiinii waxa ku lumiseen waxaan munaasib doorkan inagu ahayn dal walibna wuxuu yahay sida ay dhalinyaradiisu ka dhigto
dhalinyaro mid ah dhalinyaro wax baratay dhalinyaro aqoon leh dhalinyaro dadaalaysa dhalinyaro codkara dhalinyaro muuq wanaagsan waynu haysanaa laakiin waxaan leeyahay inta aan ogsoonayn ee aan moodaysa inuu qaranku mar dambe oo ay gaboobaan u baahanayo war maantu idiin baahan yahay war maantu biyo dhaamis u baahan yahay war maantu cod u baahan yahay war maantu karti u baahan yahay war maantu dhiig cusub u baahan yahay dal waliba wuxuu ku koraa dalalka aynu u soo wada yaacnay wuxuu ku koray dhalinyaro u soo baratay wax dhalinyaro hogaaminaysa dhalinyaro bartay dalkan karaamadiisa war inaynu barno weeyaan karaamada uu dalkeenu leeyahay waa inaynu u firfircoonaano danta guud oo aynu ka hormarino xaragadeena iyo danaheena khaaska danta qaranka waayo dhawaan waa lagu soo dhibtooday wixii odayaashu soo mareen baanu ognahay markaanu taariikhdii baadhnay sidana loogu soo gurmadaanu ognahay maanta rag baan caloolaha ka soo baxeen haddaan laynagu guntan oo dalka aan loo gurman waxaan leeyahay dhalinyaradu waa lafdabarka koowaad dhalinyaroy ka kaca fadhiga dhalinyaradu jaaniska ay haystaan haddaan halkan ka caddeeyo waxay haystaan maskax fayow oo cusub oo sida ubaxa yari markuu ka soo baxo dhulka siduu u dhalaalayo ee geedihii waaweynaa uu uga qurux badan yahay ayay uga qurux badan yihiin oo uga if badan yihiin dadka inta kale bulshada inta kale maskaxdooduna waxay curisaa waxyaabo cusub siduu ubaxuba u cusub yahay waxa kaloo ay hayaan muruqay ku qabteen wixii maskaxdu curisay waxa u sii dheer labadaasi markay ay haystaan maskaxdii iyo muruqii waxa u sii dheer waqtigii oo saamaxaya halka uuna ninka weyn aan waqtigu laga yaabo inaanu saamixin waxaan la dardaarmayaa dhalinyarada xisbiga kulmiye ee dadaalaysa inay sii wadaan inay hool iyo hiil iyo hooba la garab istaagaan inay qaybtooda ka qaataan waxaan aad ula dardaarmayaa cid kasta oo danaynaysa jamhuuriyadda Soomaaliland mucaarad iyo muxaafidba waa maalintaynu kici lahayn waa maalintii bakhaaradan la gali lahaa oo laga soo saari lahaa wixii ummadaasi cuni lahayd maaha uun xukuumadda in lagu eego maaha uun in lagu eego ummadana waa ummadii bay'ac mushtarka aad u noqonaysay ummadana waa ummadii aad xildhibaanka u noqonaysay ummadana waa ummadii aad wasiirka u noqonaysay waxaan leeyahay cid kasta oo danaynaysa jiritaanka Soomaaliland maanta mucaarad iyo muxaafidba intii wax qabatayna way ku mahadsan yihiin inta kalena waxaan leeyahay guntiga dhiisha iskaga dhiga midhaha dadka gashataan ayuunbaa hadhowna haddii aad bakhaar haysatay bakhaarkaa haddaad waxba ka bixin weyday wallaan laguu soo galayn marka barwaaqa dhacdo wallaan lagu imanayn waa idiin ballan qaadaya waa laydinla socdaa meel walba media maraya waxaan idin leeyahay waxa dadka gashataan ciidanka qarankana waxaan leeyahay geesiyiin waxii ay maantaba u dhimanayeen bay haddana laga yaabo inay mushaharkooda ay ka jareen oo ay bixiyeen sidan ka arkayay shaashadaha waxaan leeyahay qaranku ciidanka qaranku ha jiro madaxdeennuna ha jirto dadaaluun ha lagu sii daro dhalinyaradana waxaan leeyahay barbarkay ka baqdaa waa bakayla qaleen raggaa aad arkaysaan madaxda waa odayaashii soo halgamay waa dadkii u dhawaa siyaasadda iyo firfircoonida iyo nin waliba bulshada wuxuu gashtay uunbuu ka helayaa dhalinyarada maanta huruda ama facebookyada ku jirta waxaan leeyahay halka facebook unbaa laydinka gelaya maalinta dalku u baahataan ayuunbaa facebook laydinka gelaya ha u kaca waddanka u kaca والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلمية هنولادو كلمية هقوليستو Soomaaliland هنولاد عمر يرى لو حنولان هذي قلنا نولو سيدا رمتي يا عمر يرى